بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن السلام رحمه الله: وقول علي. wadaadku wuxuu ka hadlahayay qaacido uu sheegay, qaacidadaasoo ahayd qofka inay dhici karto in laga anfiyo iimaankii, haddana magacii iimaankii aanu ka zuulin xaqiiqa ahaan. waxaa la dhihi karaa muumin ma tihid, magacii iimaankana weli baaqi buu ku yaho, iimaan waa uu leeyahay qofka. tusaalooyin dhowruu keenay, kadibna wuxuu dul saaray adiladii. laba daliil oo laba xadiid buu wadaadku sheegay. xadiidkanna wuxuu noqonayaa xadiidka saddexaad, adiladii uu dhahayay dhinaca sunnada weeye. wa qowlu caliyin radia allahu canhu, cali oraahdiisoo kalea ku tusinaysa oo uu yidhi: laa salaata lijaari lmasjidi, uma sugnaanin salaad qofka masaajidka dariska la ah, ilaa fi lmasjid, inuu masaajidka ku tukada mooye. qofku mar hadduuba masaajidka aanu ku tukan, darisna uu leeyahay, salaadu uma sugnaanin. meesha waxaa laga anfiyey salaadii. wadaadku qaabka uu keenay ama wejka uu ka rabo inuu ka daliishado waxaa weeye, waxaa laga anfiyey salaad, ma tukanin baa layidhi. waxaana weye qofku waa uu tukaday. waxa la anfinaya marka waxaa weeye salaadii kaamil maaha wey, laakiin salaadiisu qofka waa ay ka dhacday oo waa uu tukaday. waxaa la weydiiyey cali bin abi taalib radia allahu canhu ardaa: waa maxay xadka dariska? wuxuu ku jawaabay: aadaanka meesha laga maqlahayo wey. marba haddaad aadaanka maqlayso, daris baa la tahay weeye. xadiidkan waxaa la wariyaa isagoo marfuuca iyo isagoo mawquuf calaa caliy bni abi taalib wa bni mascuud. xadiidka marfuuca waxaa laga wariyaa 3 saxaabi: caaisha radia allahu canha, waxaana soo saara ibn xibbaan fi lmajruuxiin, iyo daara qutni, iyo ibn aljawsi fi lcilal almutanaahiya. xadiidkaa isagaa ma sugno. sababkuna waxaa weeye, waxaa ku jira nin la yidhaahdo cumar ibni raashid aljaari, waana nin lagu tuhmay axaadiista inuu maduufikayn jiray. sidaa daraaddeed xadiidka waa mawduuc. xadiidka labaad waxaa wariya abu hureyra radia allahu canhu ardaa. waxaa soo saaro daara qutni, ibn aljawsi, iyo xaakim fi lmustadrak, iyo bayhaqi fi sunan, iyo keyrkood. xadiidkaa isagaa isaguna daciif weeye, bal waa munkar. maxaa yeele waxaa ku jira nin la sulaymaan bni daawuud alyamaami, waana munkaru lxadiid. xadiidka saddexaad waxaa wariyey jaabir ibni cabdillaahi. waxaa soo saara daara qutni fi sunan, ibn aljawsi fi lcilal almutanaahiya. xadiidka isagaana waa daciif, bal waa munkar, lianna waxaa ku jira nin la yihahdo cabdullahi bni bukayr alghanawi. waa xadiidan sugnayn. idan kama sugna nebigu sala allahu alay wasalam xadiidka ama xadiid nooca ah. mawquufka kan ah ee cali bin abi taalib radia allahu canhu mawquuf ku ah, waxaa soo saara cabdirasaaq fi lmusanaf iyo ibni abi shayb fi lmusanaf. waxaa ku jira nin la yidhahdo saciid ibni xayaan oo mukhtalafun fiihi ah. cijli iyo ibni xibbaan iyo dahabi, saddexdaa wadaad waa ay tawthiiqiyaan, waxay yidhahdaan waa nin hiqa ah. ibn alqataan wuxuu leeyahay isaguna kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa bayaan alwahmi
ninkaa laa tucrafu lahu xaalun walaa yucraf man rawaa canhu gayru abiihi. waa nin mastuurulxaala, lama garanahayo. laakiin waxaa moodaa in sha allah xadiidka isagaa in uu sugan yahay can caliy bni abi taalib radia allahu canhu ardaa, waalcilmu cinda allah. xadiidu cumar, xadiidka cumar baa ku tusinahaya radia allahu canhu ardaa. fi lmuqadimi hiqa lahu, kii hormariyey culayskiisii leylata annafri, habeenkii la baxayey oo laga baxahayey musdelifo ama mino oo lasii hormarahayy, annahu laa xaja lahu, qofka isaga xaj ma laha. macnaheedu waxaa weeye xaj dhammaystiran ma laha wey, laakiin xajkiisii waa uu ka gudahayaa. adarka isaga waxaa soo saaray abi shayba fi lmusanif wa abiljacad fi musnadihi. adarkaana waxaa weeye dacfi baa ku jira, ciladiisuna waxaa weeye labo dhinac. marka koowaad camr ibn shuraxbiil ma ka maqlin waxba cumar bn alkhadaab radia allahu canhu, oo ka warinaya cumar waxba kamaanu maqlin. sidoo kale ibraahim annakhaci camar ibni shuraxbiil isagana waxba kamaanu warin oo kamaanu maqlin, wallahu aclam. wa maqaalatu xudayfa waxaa ku tusinaysa oraahdii xudayfa radia allahu canhu ardaahu uu oran jiray oo ahayd man ta'ammala qofka fiiriya khalqa imra'atin, haweeney abuurkeed sida ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala ka suuraysta, min waraa'i thiyaabi, dharka gadaashii, wa huwa saa'imun iyadoo sooman, isagoo sooman, dharkeedii sidaa u fiiriya oo ka suuraysta, abtala sawmuhu, soomkiisa waa uu buray. qofka sidaa samey, qof soomkii uu ka buray wey. waa qof dembi ku dhacay, khaladna galay, sidaa daraaddeed soomkiisii dhaawac baa soo gaarahay, laakiin maha qof soomkii uu ka wada buray wey. waxaa soo saara adarka isaga hanaad fi kitaabi azuhd, dariiqiisana waxaa ku soo saaray ibn aljawsi fi lmawduucaat. xadiidkaa isagaana ma sugno, maxaa yeeley waxaa ku jiro nin la yiraahdo layth ibna abi sulaym. wuxuu ahaa nin saduuq ah, laakiin markii dambe buu oolyadii biyaha isku daray. axaadiistiisina waa la kala sooci waayey, sidaa daraaddeed baa laga tegay. waxaa kaloo la wariyaa xadiidka isagoo marfuuca min xadiidi anas bni malik radia allahu canhu ardaah, waana xadiid mawduuca weeye. waxaa soo saara ibnu cadiyin fi lkaamil wa min طariiqihi ibn اljawsiy fi lmawduucaat, wallahu aclam. qaala abu cubaydin raximahu llah, fahadihi alaathaaru kuluha, aathaartan dhammaanteed, wamaa kaana mudaahiyan lahaa, iyo wixii shabaha, fa huwa cindii calaa maa fasartu laka, aniga agtayda iyo sidaan u arko waxaa weeye sidaan kuu soo fasiray. marka ay yimaadaan axaadiidta noocaas oo kalea, waxaa lagu xambaarahayaa shayga xaqiiqadiisa iyo kaamilnimadiisa unbay anfinayaani, shaygii dhammaantii may wada anfinahayaan. wakadalika alaxaadiidu, sidaasoo kalea waxaa ah axaadiidta allatii fiiha albaraa'atu, ay ku sugan tahay ka beri noqoshada, laga beri noqonayo nebiga sala allahu caleyh wasalam ama diinta islaamka beri laga yahay. fa hiya mithlu qowlihi sala allahu caleyhi wasalam, man facala kada wa kada falaysa mina. waa sida oraahda axaadiista nebiga sala allahu caleyh wasalam ee ku jirtee ah,
qofkii sidaas sameeya iyo sidaa naga mid maaha. waa sida man xamala calayna asilaaxa falaysa mina, man gashanaa falaysa mina, laa naraa shay-an minha yakunu macnaahu atabaru'u min rasuuli illaahi. laa naraa uma aragno shay-an minhaa wax ka mid ah axaadiidtaas yakuunu macnaahu macnihiisu inuu yahay attabaru'u min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay oo beri laga noqdo, walaa min millatihi ama diintiisii oo beri laga noqdo. inamaa madhabuhu cindanaa, laakiin fasirkiisu waxaa weeye annaga agteenna, annahu laysa min almutiiciina lana, ka mid maaha kuwana ateecay annaga ee nebiga kuwa ateecay sala allahu alay wasalam ka mid maaha wey macnaheedu. walaa min almuqtadiina bina, ma ka mid aha kuwa nagu dayday, macnaheedu waxaa waye kuwa nebiga ku daydayna ka mid ma aha. walaa min almuxaafidiina calaa sharaa'icina, ma ka mid aha kuwa ilaaliya sharaacada nebiga sala allahu alay wasalam, diinta kuwa ilaaliya ka mid maaha. macnaheedu nebiga sala allahu alay wasalam awaamirtiisa kuwa ilaaliyo xifdiya ka mid ma aha. fa haadihi annucuut wamaa ashbahaha, tilmaamaha iyo wixii la mid ah baan ku tilmaamaynaa buu wadaadku yiri. sidaasaan u tawjiihinaynaa axaadiidta. waqad kaana sufyaan ibnu cuyayna yata'awalu qowlahu, wuxuu ahaa sufyaan ibnu cuyayna radia allahu canhu ardaah, wuxuu ahaa sufyaan ibnu cuyayna raximahu llah mid ku fasira nebiga sala allahu alay wasalam oraahdiisa laysa minaa ah laysa mithlanaa, annagoo kale maaha. wa kaana yarwiihi can gayrihi, wuxuuna ka warin jiray weliba geyrkii buu ka warin jiray aydan sidoo kale. fa haada ta'wiilu, tafsiirkaa uu qaatay ibnu cuyayna, wain kaana aladii qaalahu imaamun, inkastoo uu yahay ninka yidhi nin imaamah oo weliba min a'immati alcilmi, a'immada cilmiga ka mida ah, fa innii laa araahu, uma arko inuu sax yahay tafsiirka isaga, min ajli annahu idaa jucila man facala dalika laysa mithlu nabiy sala allahu alay wasalam. sababkuna waxaa weeye haddii laga dhigo qofka sidaas sameeya inaanu la mid ahayn nebiga sala allahu alay wasalam, lasimahu waxaa qasab noqonaya an yasiira man laa yafcaluhu mithlu nabiyi sala allahu alay wasalam, inuu noqdo qofkaan samaynin falka nebigoo kale sala allahu alay wasalam. wa ilaa haddii aanu arrinku sidaa ahayn, falaa farqa bayna alfaacili waataariki, wax farqiga u dhexeeya ma jiro qofkii falkaas sameeyey iyo kii ka tegey. walaysa lilnabiyi sala allahu alay wasalam cadiilun walaa mithlun, nebiga sala allahu alay wasalam wax u dhigma ama wax la mid ah ma jiro salawaatu ullahi wasalaamu calayh, min faacili dalika walaa taarikihi, oo a kii waxaa sameeyey iyo kii ka tegay intaba. tafsiirkaa isagaa wadaadka meel fog buu uga soo haray, waana sida ay tahay. waxaa la weydiiyey alimaam axmed ibni xambal raximahu llahu, tafsiirka sidaa ah ka waran in lagu fasiro xadiidka nebiga sala allahu alay wasalam. aada buu u inkiray, weliba wuxuu yidhi waxaa wariya miscar ibni kidaam can cabdilkariim ibni abi umaya, wuxuuna yidhi sufyaan athawri, wuxuuna yidhi sufyaan ibnu cuyayna sidaasuu ku wahmin jiray. wuxuu dhihi jiray can miscarin
can xabiibin can ilxasan ibni maxamed. wuxuu kaluu imaamku yidhi haddii qofku uu soomo ama salaad uu tukado ma wuxuu noqonayaa sida nebiga oo kale sala allahu calay wasalam isagoo la yaabanoo inkirhayo su-aashaa weeye. kadib wuxuu yidhi warkaa warkii murji'ada weeye, warka ahlu sunnaha ma aha. waxaa la weydiiyey cabdiraxmaan ibni mahdi, wuxuuna yidhi dadka qaar baa sidaa ku fasiray, laakiin tafsiirka ay qaateen tafsiir saxan ma aha. sidaasay ahlu cilmigii salafki ahaayeen, wixii aan saxnayn waa ay caddayn jireen. cid walbana ha tiraahdo, cidda tiraahdo imaam jaliil hadduu raba ha noqdo, lianna alxaqu axaqu an yutabac. xaqay tahay wax walba in laga hormariyo oo la qaatoo la raaco. taqdiisu rijaalna beryo danbay bilaabatay. xaqi qofka isagoo u jeedo uu cad yahay inuu inta garab malo min ajli fulaan baa garab maray daraaddeed wax kale inuu qaato arrin khatara wey. fahada ma fi nafyi aliimaani wa fi lbaraa'ati min annabiyi sala allahu alay wasalam. kaas waa waxa ku sugan tafsiirka lagu fasirayo weeye nafyiga layska anfiyey iimaanka iyo ka beri noqoshada nebiga sala allahu alay wasalam laga beri noqo. inamaa axaduhumaa min alaakhari wa ilayhi ya-uul. midkood midka kale buu ka ahaaday, isaguna u noqonahayaa. macnaha haddii lagu fasiro ka nafyiga ee diidmada haddii lagu fasiray kamaalka iyo xaqiiqada, baraa-adana sidoo kale wey oo way isku noqonayaan wey. wa ama alaathaaru almarwiyaat bidikri alkufri waashirki wa wujuubihima bilmacaasi. amaa axaadiidta laga wariyo ee uu ku jiro lafdiga kufri ama shirki inay ku waajibaan macaasida, fa ina macnaaha macnaheedu waxaa weeye cindanaa laysat tuhbitu calaa ahliha kufran walaa shirkan. ehelkeeda uma sugayso gaalnimo iyo shirki. yusiilaani aliimaana, kuwaasoo ka zuulinahaya iimaanka can saaxibihi saaxiibkii. inamaa wujuuhuhaa, wejiyaalkeedu waxaa weeye, tafsiirkeedu waxaa weeye annahaa min alakhlaaqi waasunani alatii calayha alkufaaru waalmushrikuun. waxay ka mid tahay dabeecadihii iyo sunnooyinkii gaalada ay lahaayeen iyo mushrikiinta. waqad wajadnaa lihaadayni annawcayni min addalaa'ili fi lkitaabi waassunna. waxaan helnay labadaa nooc, waxaan u helnay adillo kitaabka iyo sunnadaba aan ka helnay, naxwan mima wajadnaa fi nnawcayni alawaleyn, oo la mida weliba adilooyinkii aan ka helnay noocyadii horoo kale. noocyadii haddaan soo marnay nafyu liimaan ama albaraa'atu min annabiyi sala allahu alay wasalam oo min millatihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laga beri noqo. famin ashaahidi cala ashirki fi tanziil, waxaa ku tusinahaya ama daliilu ah shirkiga xagga qur'aanka qowlullaahi tabaaraka wa tacaala, ilaahay subxaanahu wa tacaala oraahdiisii uu yidhi fii aadama wa xawaa, oo uu ka yidhi aadam iyo xawaa cinda kalaami ibliisa iyaahumaa, markii ibliis uu la hadlay labadooda. huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida, huwa ilaahay aladii allihii wey khalaqakum idin abuuray min nafsin waaxidatin naf keliya idinka abuuray,
oo wajacala yeelay minhaa naftaa xaggeeda ka yeelay zawjaha zawjkeedii ka yeelay liyaskuna si ugu xasilana sidaa u sameeyey ilayhaa naftaas ugu xasilo falamaa goortii taqashaa uu daboolay haa zawjkii markuu dabool waa kinaaya can iljimaac yay xamalad qaaday xamlan uurkaasoo khafiifan fudud famarat bihi markaasay daa'imtay oo ku dul socotay uurkii bay muddo lahayd wey falamaa ahqalad markay cuslaatay dacaw allaha ilaahay bay baryeen rabbahumaa rabbigooday baryeen oo waxay ka baryeen lain aataytanaa saalixan hadaadna siiso walad saalixa lanakuunanna min ashaakiriin waxaan ka mid noqonaynaa kuwa shukriya oo kugu shukriyaan ka mid noqonaynaa waxaa weeye falamaa aataahumaa markii ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala waladkii ay ilaahay ka baryaayeen falamaa aataahumaa saalixan walad saalixa markuu ilaahay siiyey jacalaa lahu shurakaa'a ilaahay subxaanahu wa tacaala ba waxay u yeeleen kuwa ilaahay shariik lahaa oo shuraka ilaahay u sameeyeen oo waxay la wadaajiyeen fii maa aataahumaa wixii ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala fatacaala allaahu allah kor noqdoo sarreeye camaa yushrikuuna ilaahay baa ka sarreeya subxaanahu wa tacaala waxa ay la wadaajinahayaan ilaahay waa ka sarreeya waana uu ka hufan yahay wa innamaa huwa fi ta'wiili waxaa weeye xagga fasirka anna shaydaana qaala lahumaa aayaddaa tafsiirkeeda marka la fiiriyo shaydaanka wuxuu ku yidhi samiyaa waladakumaa wiilkiinaa waxaad u bixisaan cabdalxaarithi waxaa la yidhaahdaa marka hore xaawo calayhi assalaam uurka ugu horreeyay qaaday wuxuu bilaabay inuu ka soo dhacahayo uurka marka mar walbay uur qaaday baa uu ka soo dhacahayey marka dambe baa dhowr jeer markii uu ka soo dhacay waxaa u yimid ibliis lacnatullaahi calayhi markaasu wuxuu ku yidhi ma rabtaa in uurkaanu ku adkaado oo aanu kaa soo dhicin ama ilmaha hadduu dhasho aanu kaa dhiman waxay tidhi haa wuxuu ku yidhi markaa iyadaa wiilkan waxaa u bixisaan cabdalxaarith markii uu dhashayna waa ay u bixiyeen xaarithna waa magac ka mida magacyada ibliis magacyadiisa wey sheekhu wuxuu yidhi marka fahal liaxadin yacrifu allaha wa diinahu qof ilaahay iyo diinkiisa garanaya suurtagal ma ka tahay an yatawahama inuu ka malaysto calayhim alishraaka billaahi maca annubuwa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u shariig yeelaan xawaa iyo aadam inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u shariig yeelaan aadam iyo xawaa iyadoo lala qaba nebinimada weliba aadam calayhi salaam uu nebi ahaa waalmakaani min allaahi iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa booska ay ka taagan yihiin marka la fiiriyo faqad samaa alla subxaanahu wa tacala wuxuu ku magacaabay ficlahumaa falkoodii ay sameeyeen shirkan buu ku magacaabay walaysa huwa ashirku billaahi mana aha shirkiga ilaahay subxaanahu wa tacaala loo sharig yeelahayo diinta looga baxayay ma aha tafsiirka wadaadku uu maray oo aayadda uu ku fasiray in aadam calayhi salaam iyo xawaa ay looga jeedo jacala lahu shurakaa fiima aataahumaa waxaa sidoo kale maro bacdu ahli ilcilmi min almufasiriin waxaa la wariyaa aathaar laga wariyo xasan albasri raximahullah
waxaa la wariyaa athar laga wariyey xasan albasri oo arrintaa wadaadku uu sheegay tilmaamaya. atharka isaga bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waa munkar oo kama sugna xasan albasri, bal bacduhum waxay yidhahdeen waaba israa'iiliyaad warka noocaasa. maxaa yeelay in lagu sheego shirki inay ku dhaceen ambiyada ilaahay ayadoo wax daliilahu aanu jirin arrin saxan maaha, bal waxaa ijmaaca inay ambiyadu macsuumin yihiin oo aanay ku dhicin wax shirki ah weye, oo shirkigay macsuum ka yihiin. sidaa daraaddeed ibn alqayim raximahu llahu fi kitaabihi rawdat lmuxibiin markuu aayadda fasirahayay wuxuu yidhaahdaa annahu laa yultafatu ilaa qowli man qaala ina aadama waxawaa kaana laa yaciishu lahumaa waladun faataahumaa ibliisu faqaala in axbabtumaa an yaciisha lakumaa waladun fasamiyaahu cabd alxaarithi. wuxuuna yidhi faannafsu alwaaxidatu wa zawjuha aadamu waxawaa wاladaani jacala lahu shurakaa'a fima aataahumaa almushrikuuna min awlaadihima. wuxuu ku fasiray awlaadda aadam calayhi salaam oo markaa ayada aayaddu ay markaa ayadaa ku tusayso inaan loola jeedin aadam iyo xawaa calayhim assalaam. dhowr wejina waa ay kaa tusi kartaa inay warkaa ayadaa uu saxan yahay wadaadku u sheegay. wejka koowaad waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadka dambe wuxuu ku yidhi fatacaala allahu camaa yushrikuun, jamacna weeye. haddii laba qof laga soo hadlayay maxaa loo yidhi fatacaala allahu camaa yushrikuun. wejka labaadna waxaa weeye aadam iyo xawaa calayhim assalaam warka kumaba jiraan oo waxaa loo jeedaa jinsi nafsi a loo jeedaa oo jins aadam weeye. kan saddexaad waxaa weeye ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu baray aadam wax walba inuu baray. sidaa daraaddeed waa baciid in la yidhahdo aadamba waxaa ka qarsoontay maxaa la yidhaahdaa ibliis magaciisu inuu yahay xaarith oo sidaasuu shirki ku galay. marka waxaa moodaa in wadaadka tafsiirka uu maray laga xoog badan yahay oo aayaddu aanay ku tusinaynin sida wadaadku uu sheegay waalcilmu cinda allahi. qaala shaykhu wa ama aladii fi sunnati faqowlu nnabiyi, amaa dhinaca sunnada midka daliilka u ah oo ku tusahayaa waxaa weeye hadalka nebiga sala allahu alay wasalam oo uu yidhi akhwafu maa akhaafu calaa ummatii, waxa laga cabsado kaan ugu cabsida badanahay ummaddeeda uga baqahayo waxaa weeye ashirku alasqaru, shirkiga yar weeye. faqad fasara laka waxaa kuu fasiray biqowlihi sala allahu aleyh wasalam oo rahdiisa uu yidhi al asqaru wuxuu kugu fasiray ana haahunaa inuu jiro shirkan shirki oo siwa aladii yakuunu bihi saaxibuhu mushrikaa aan ahayn midka saaxiibkii uu ku noqonayo mid mushrik ilaahay subxaana wa tacaala u sharig yeelay oo diinka ka baxay aanu ku noqonayn. xadiidka isaga waxaa wariya waxaan hore usoo marnayo waxaan kusoo marnay safxada 89 waana xadiidka aan niri raawigiisu waxaa weye maxamuud ibni labiid waana mukhtalafun fii suxbatihi saxaabinimadiisa laysku khilaafay. cidda aaminsan inuu saxaabiya xadiidka xadiid marfuuca oo saxiixun sanaduhu ah. ciddii aan aaminsanay inuu saxaabi yahayna waxaa weeye xadiidka waxay ka dhigayaan mawquufun calaa maxamuud ibni labiid waana taabici weyay leeyihiin. xadiidkana si walboo la yidhaahdo waa uu sugan yahay mawquufan kaana wa marfuuca. wa minhu waxaa ka mida qowlu cabdillaahi bni mascuud oraadiisa uu yidhi arribaa ribadu bidcun wa 60 baaba, waa 60 baab wey. washirku mithlu dalik, shirkigana waa sidoo kale. xadiidka waxaa soo saara
cabdirazaq iyo ibn abi shayf fi lmusanaf wa cabdullaahi fi sunna waxaana ka wariyaan duruq dhowra cabdullahi bn mascuud waxaana moodaa inuu yahay saxiix. sheekh naasir addiin alalbani raximahullah wuxuu ku saxiixiyaa silsilada xadiidka raqamkiisu yahay 1871. faqad akhbaraka wuxuu kuu sheegay ana fi dunuubi dunuubta dhexdeeda inay tahay anwaacan kathiira dhowr nooco tusamaa bi hada alism oo magacan lagu magacaabo wahiya gayru lishraaki billahi mana aha wahiya gayru lishraaki billahi waxaana weeye waxaan ahayn shirkiga allatii yutakhadu laha maca allahi ilaahan taasoo laga dhigto ilaahi subxaana wa tacaala la jirkii ilaah kale la samaysto wey. shirkiga aan ahayn ilaahi subxaana wa tacaala geyrkii in la caabudo tacaala allahu can dalik ilaahay baa ka sara marayta culuwan sarrayn oo kabiiran wey. falaysa lihadihi alabwaab abwaabta cindanaa wujuuhun annaga agteenna wax fasira ma lahan ilaa annaha akhlaaqu lmushrikiin in lagu fasiro aan ka ahayn in lagu fasiro caadada iyo dhaqanka mushrikiintaa sidaa ah wa tasmiyatuhum iyo magacyadoodii wa sunanhum sunnooyinkooda iyo wa alfaaduhum alfaadoodii wa axkaamuhum axkaamtooda iyo wanaxwu daalika waxaasoo kale wixii ah oo min umuurihim wixii gaalada ay samayn jireen in lagu fasiro un weeye. wa ama alfurqaanu shaahidu kan kala caddaynahaya warka oo calayhi fi tanziili qur-aankana ku soo arooray qowlullaahi jala wacalaa wey qowlullaahi jala wacaz ilaahi subxaana wa tacaala hadalkiisii wey oo uu yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allah qofkii aan ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankiisa wax ku xukumin oo wixii uu soo dejiya wax ku xukumin fa ulaa'ika kuwa hum iyaga unbaa alkaafiruuna gaala a weeye. wa qaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas wuxuu yidhi radia allahu canhuma wa ardaahuma laysa bikufrin ma aha gaalnimo oo yunqilu can millah qofka ka bixinaya diinta oo diinta ka saarahay. wa qaala cataa ibnu abi rabax wuxuu yidhi kufrun aayaddu waxaa weye kufrun gaalnimo oo duuna kufrin gaalnimada diinta looga baxaya aan ahayn. faqad tabayana lana waxaa noo caddaaday annahu amar iyo sha'ni kaana laysa binaaqilin can millati alislaam kufrigaa inaanu ahayn mid diinka islaamka dad ka saaray ana diina baaqin calaa xaalihi diinku wuxuu ku sugan yahay sidiisii wa in khaalatahu dunuubun dunuubba ha dheehdo marka ayada falaa macnaa lahu macno kale ma laha falaa macnaa lahu macno ma laha wey ilaa akhlaaqu lkufaari in lagu magacaabo mooye falaa macnaa lahu macnihiisu ma aha ilaa akhlaaqu lkufaar macnihiisu marka ayadaa wuxuu noqonayaa in la dhaho gaalada maxaa la yidhahdaa caadooyinkoodii iyo dhaqankoodii wey iyo wa sunnatuhum sunnadood calaa maa aclamtuka sidaan kuusoo ogeysiiyey min ashirki shirkiga markaan fasirayni sawaa sidoo kale lianna min sunani alkufaar gaalada sunnooyinkooda waxaa ka mid a alxukm bigayri maa anzala allah baa ka mid ah. alaa tasmacu miyaadan maqal qowluhu tacaala afa xukma aljaahiliyati xukunka jaahiliyada miyey yabquuna doonahayaan ilaahay marka uu leeyahy ta'wiiluhu cinda ahli tafsiir fasirkiisu waxaa weeye dadka tafsiirka ehelka u ah fasirka ay ku fasirhayaan waxaa weeye ana man xakama bigayri maa anzala allah qofka ku xukuma ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn wahuwa calaa millati alislaami qofkaasuna uu muslim yahay kaana bidalika alxukmi xukunkaa wuxuu ku noqonahayaa ka ahli ljaahiliyati sida dadka ahlu jaahiliyada oo kale ku noqonahaya inamaa huwa fasirkiisu waxaa weeye ana ahla aljaahiliyati dadka ahlu jaahiliyada ahaa kaanuu yaxkumuuna saa wax ku xukmahayey. aharka ibn cabaas radia allahu canhumaa haddaan isdul taagno aharka wuxuu ku yimaadaa alfaad kala duwan. kitaabka waxaa inoogu qoran laysa bikufrin yunqilu can millah
waxaa soo saara alxaakim iyo almirwasi fi tacdiimi qadri الصalaة mujaladka 2 522. sidoo kale waxaa la wariyaa laysa bilkufri aladii yadhabuuna ilayhi. labadaba waxaa ku jira nin la yidhaahdo hishaam ibnu xujayr almaki. ninkaa isaga waa nin daciifa weeye, dacafahu alculamaa. cali bn almadini wuxuu yihi qara'tu calaa yaxya bni saciid xadahanaa ibnu jurayjin can hishaam bni xujayrin xadiidan qaala yaxya bni saciid khaliiqun an adaca. waxaa habboon ninkaa inaan ka tago. qultu adribu calaa xadiidihi, xadiidkiisa ma ka tagaa? qaala nacam. wuxuu yidhi ka tag, ninkaa xadiidkiisa tuur oo ka tag. qaala ibnu cadiyin kataba ilaya moxamed bn اlxasan xadahanaa camru bnu caliyin samictu yaxya su-ila can xadiidi hishaam bni xujayr. yaxyaa la weydiiyey xadiidka hishaam bni xujayr, yaxya bni maciin. markaasuu wuxuu yidhi faabaa an yuxaditha bihi walam yarda. wuu diiday inuu xadiidkiisa wariyo, raallina kama noqon. cabdullaahi bni axmed bni xambal wuxuu yidhi waxaan weydiiyey yaxya bni maciin can hishaam bni xujayr fadacafahu jiddan, aad buu u daciifiyey, waa nin daciif jiddan ah buu yidhi. wa qaala cabdullaahi wuxuu yidhi aabbahay baan maqlay isagoo leh hishaam bnu xujayr waa makiyun daciifu alxadiid. wa qaala abu xaatim yuktabu xadiiduhu, xadiidkiisa waa la dhigaa, ninkaa waa la qoraa un maahane xadiid la xujaysto maaha. wadakarahu alcuqayliyu fi ducafaa, cuqaylina wuxuu ku sheegay ducafadu ku daray. sidaa daraaddeed xadiidka uu ku jira ninkaa la yidhahda hishaam ibnu xujayr waa daciif, oo a'imada waaweyn baa daciifiyey. waa yaxya bni saciidin alqataan, cali bni almadini, yaxya ibni maciin, axmed ibni xambal, abu xaatim iyo cuqayli iyo keyrkood. xaafidku waxaa ka soo horjeeda oo loo helay ninkaa isaga tawthiiq libacdi alculamaa, gaar ahaan ragga ahlulxadiidku ay ku sheegaan, ragga mutasaahiliinta ku ha fi ljarxi watacdiil, ee iska tawthiiqiya rag fara badan bilaa xuja, sida ibnu sacad iyo maxaa la yidhaahdaa ibnu xibbaan, ibnu shaahiin iyo cijli. raggaa iyagaana waxaa la ogyahay inay inta badan ku tasaahulaan dadka ay tawthiiqinayaan iyo tacdiilinayaan. xaafidku wuxuu yidhi raximahullah, ninkaa marka uu ka hadlayay darajadiisa waa saduuqun lahu awhaam. waxaa ka wariya xadiidkan sufyaan ibnu cuyayna. sufyaan ibnu cuyayna raximahullah wuxuu xukumay ninkaa isagaa inaanu xadiid ka qaadan ilaa inuu dadka kale ka waayo mooye. wuxuu yidhi rawa alcuqayliyu fi ducafaa can ibni cuyayn, wuxuu ka wariyey inuu yidhi lam na'khud minhu ilaa maa laa najidu cinda gayrihi, kama warino ninkaa kamana qaadanno ilaa wixii aanaan dadka kale ka helin.
waxaa un baan isaga ka qaadanaa oo markaa sidaasaan ku warinaa buu leeyahay Sufyaan ibnu Cuyayna. idan xadiidku hadduu sidaa keliya ahaan lahaa waxaa laga yaabaa in wax loo dadayi lahaa, laakiin xadiidku waxaaba la dhihi karaaba waa munkar weeye. maxaa yeelay xadiidku waxaa la dhihi karaa shaad weeye. maxaa yeelay waxaa khilaafay dad isaga maxaa la yidhaahdaa ka hiqaysan oo ka sugan. haddaan u fiirsanno alfaad kale oo xadiidkan ku soo baxday oo ku timi atharka uu warinahayo ibnu jariir atabari fii tafsiirihi baa ka mida markuu suuraddan aayaddan fii suurati almaa'ida ku jirta fasirahayey wuxuu wariyey atharkan: xadahanaa hanaad, xadahanaa wakiicun, waxadahanaa ibnu wakiic qaala xadahanaa abi can sufyaan can macmar bni raashid can ibni taawuusin can abiihi can ibni cabbaas fii qowlihi tacaala waman lam yaxkum bima anzala allah faulaa'ika hum alkaafiruun qaala hiya bihi kufrun walaysa kufran biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih. meeshan waxaan ku aragnay lafdi kale oo dhahaya ma ahan gaalnimada ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rasushiisa lagu gaaloobee waa kufri aan kaa ahayn. atharkaa isagaa marka la fiiriyo daahirkiisa athar saxiix ah weeye, sanadkiisu waa sanad sugan weeye, laakiin markii la baaray waxaa la ogaaday inay ku jirto atharkaas hadal ibnu cabbaas aanu lahayn, waana qeybta dambe ee odhanaysa walaysa kufran billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih. yaa iskale qeybtaa dambe? waxaa iskale ninka la yidhahdo cabdullaahi ibni taawuus. sidee lagu ogaaday warkaa isagaa in cabdullaahi ibni taawuus uu leeyahay? marka loo tago kitaabka la yidhaahdo almusanif uu leeyahay alimaam cabdirasaaq ibni hamaam asancaani, waxaa ku sugan in cabdirasaaq ibni hamaam asancaani sanadkan uu wariyo uu yidhi qaala akhbaranaa macmar can ibni taawuus can abiihi taawuus qaala su'ila ibnu cabbaas can qowlihi faulaa'ika hum alkaafiruun qaala hiya bihi kufrun qaala ibnu taawuus cabdullaahi ibni taawuus wuxuu yidhi walaysa kaman kafara biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. saa markaa iyadaa waxaa ku caddaaday qeybtaa dambe inaanu ka mid ahayn atharka cabdullaahi ibni cabbaas, ee atharka cabdullaahi ibni cabbaas uu ku egyahay qeybta hore oo ah hiya bihi kufrun, gaalnimo weeye. hiya bihi kufrun markii la weydiiyey cabdullaahi ibni cabbaas aayaddaa iyadaa maxaa loola jeedaa, wuxuu yidhi hiya bihi kufrun, ee kuma darin walaysa kaman kafara biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. hadalku markuu sidaa yahay oo xadiid sugan ama athar sugan hadal dheeraada lagu daro oo loo idaafeeyo waxaa la dhahaa qowlkaa isagaa mudraj. mudrajkana waxaa weeye cidda warkaa iskale unbaa loo tiirinayaaye atharka ciddi lahayd ama xadiidkaa ciddi lahayd looma tiirinayo. sidaa daraaddeed xadiidkan isaga ah ama aathaartan dhowrkaa ee laga wariyey maxay ahayd ibnu cabbaas radia allahu canhuma wa ardaahuma kama sugno, bal waa daciifa ama waa shaadda munkara ah. wa calaa fard thubuuti alathar waxaa la dhihi karaa atharkan kama hadlahay qadiyadda loo yaqaano alqawaaniin alwadciya, oo ah in la samaysto dastuur dadku ay ku dul socdaan oo ay ku dhaqmaan, kaasoo khilaafsan diinta islaamka. wuxuu soo bilowday
arrin noocaasoo kale in la sameeyo wakhtigii tataarka oo waxay sameeyeen buug la yidhaahdo yaasiq meesha hadda loo yaqaano buugaagta la sameeyo dimuqraadi buuggaa isaga waxaa la oran jiray yaasiq wuxuu ka keenay shareecooyin kala duwan towraadka iyo injiil iyo furqaan iyo wuxuu asagu arkahayay oo fikraddiisaa buu isku daray markaasuu dadku wuxuu ku khasbay kan ha la raaco ha lagu dul socdo culimmadii marka ay fiiriyeen arrinkaasaa waxay ku xukumeen kufri iyo gaalnimo diinka bax inuu yahay waxaa ka mid a dad ka hadlay ibni kathiir raxmatullah caleyh fi lbidaaya waannihaaya iyo sidoo kale tafsiirkiisa marka uu ka hadlayo afa xukma aljaahiliyati yabquun wuxuuna sheegaa inay ijmaac tahay gaalnimada ciddii waxaasoo kala samaysa waana gaalnimo weyn oo diinka islaamka looga baxayo ciyaadan billahi min dalik waxaa atharkaas soo qaatay culimo fara badan oo ay ka mid yihiin saaxib fatxi almajiid cabdiraxmaan ibni xasan raxmatullah waxaa la isweydiin karaa su-aal ah qofku ka waran haddii uu ku dhaqmo towraadka ama injiil oo labadaba ah munazal min allahi subxaanahu wa tacaala ma ku gaaloobahayaa oo diinka ma kaga baxayaa bal aan dhegaysanno alimaam ibni xasam wuxuu arrinkaa ka leeyahay wuxuu leeyahay laa khilaafa bayna ithnayni min almuslimiin ana hada mansuukhun wa ana man xakama bixukmi alinjiili khilaaf kama jiro arrinkaa inuu mansuukh yahay sidoo kale khilaaf kama jiro qofka ku xukuma alinjiil mima lam yaأti binnasi calayhi waxyun fi shariicati alislaam wax aanu ku soo degin waxyi shareecadeenna waxaanu ku soo degin fa inahu kaafirun waa gaal oo mushrikun mushrik ah khaarijun can alislaam diinkana ka baxay oo diinka islaamka ka baxsan idan arrinku waa arrin aada u adag wey in lagu baraarugana waa uu mudan yahay dadkana looga digo dadkan ku qamaamay dimuqraadiga iyo cilmaaniyadda iyo mooday inay horumar tahay adduunkana gaarsiinahaya maxaa la yidhaahdaa horumar maaha bal waa takhalluf iyo meeshii ugu dambaysay iyo dib u dhac wey waana waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka caraysiiya maalin walba haddaad adigu usoo labisato allah subxaanahu wa tacaala inaad ka caraysiiso sideed ilaahay uga rabtaa subxaanahu wa tacaala inuu janno ku siiyo sideed ilaahay uga rabtaa inuu ku wanaajiyo war ilaahay ku abuurtay intaad ka cabsato waxaan ka bax oo ka tag alimaam ashaafici raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay ama aladii yajtahidu wayusharicu calaa qawaacida khaarijatin can qawaacid alislaam fainahu laa yakunu mujtahidan walaa yakunu musliman ida qasada ilaa wadci maa yaraahu min alaxkaami waafaqat alislaama am khaalafathu wuxuu leeyahay qofka ku ijtihaadaya ama dejinahaya qawaacid aan ahayn qawaaciddii islaamka qaacidooyinka islaamka aan ahayn buu dhigahayaa qofkaasu ma ahan qof mujtahid ah mana noqonahayo muslimna maaha haddii uu u qasday waxa inuu sameeyo waxa uu asagu u arko axkaam inay yihiin inuu dejiyo hadduu u qasday muslim maaha waxa uu dejiyey islaamka ha waafaqo ama yaanay waafaqin sidaasuu leeyahay idan arrinku khatiir wey waa arrin aada u adag in meelaha marka manaabirta iyo qofku uu kaga faano dimuqraadi baan nahay iyo dal dimuqraadiya iyo hebel dimuqraadigu ku dhaqmaa iyo dimuqraadiyadaa sidaa qabta iyo waa arrin khatiira waxaana noqon kartaa wax diinka uu qofku kaga baxo haddaba la iska ilaaliyo
marka aan leenahay qawaaniinta wadciga ama dastuur in la dejistaa khilaafsan diinta islaamka waa diinka bax. waxaa loo daliishaday adilo dhowra oo qur-aanka ku jirta ee aan ahayn aayaddii hadda aan soo marnay ee ibni cabaas radia allahu canhuma wa ardaahuma uu fasirayay. aayaddaa marka adiladan iyo aayaddaa si loo jamciyo, culimmada waxay yidhaahdeen aayaddan waxay ka hadlaysaa dalkii ku dhaqmaya diinta islaamka ee qaadigiisu ama madaxweynihiisu uu xukumo markaa ayadaa qadiyad gooni ah. wuxuu qaatay laaluush ama cid kale u danaynahaya isagoonba laaluush qaadan, dulmi noocaasoo kaleu sameeyey, markaa ayadaabuu kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala si aan ahayn buu xukumay. waxay leeyihiin gaalnimada ninkaa wuu ku dhacay, laakiin gaalnimo diinta islaamka looga baxayo ma aha. sidaa waxaa qaba culimo badan oo mucaasiriin ah, qaarkood ay dhinteen qaarna ay nool yihiin. waxaa ka mid ah culimmada islaamka asheykh maxamed ibraahim al sheekh, washeykh axmed shaakir, washeykh ibnu cuthaymiin iyo keyrkood ee hadda nool. ibnu cuthaymiin raxmatullaahi calayhi hadalkiisa balan wax yar ka tilmaamo. wuxuu leeyahay: wa bina'an calaa hada naquulu ina aladiina yuxakimuuna alqawaaniina al'aan wayatrukuuna waraa'ahum kitaab allahi wa sunnata rasuulihi ma hum bimu'miniin laysuu bimu'miniin liqowlihi tacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum waliqowlihi waman lam yaxkum bima anzala allah faulaa'ika hum alkaafiruun وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين، جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة له. wadaadka hadal dheer baan kasoo guurinay. haddaan soo koobno gaar ahaan qeybtii dambe, wuxuu leeyahay kuwaa xukumahaya qawaaniinta iyo dastuurka ma xukumayaan qadiyad oo keliya, kitaabka ilaah iyagoo ku dhaqmaya qadiyad gooniya ma xukumhayaan oo kitaabka ay ku khilaafeen, sababkuna uu yahay hawadooda ay raaceen ama dulmi ay sameeyeen, laakiin waxay bedeleen, ay ka bedel qaateen diinta ilaahi subxaana wa tacaala, waxayna qaateen qawaaniintaas, waxayna yeeleen qawaaniintii booskii diinta ilaahay laga rabay. taasna in la sameeyo waa gaalnimo. xataa ha soomaan, ha tukadaan, waxa sadaqaystaano, hana xajiyaan, waa gaalo, maadaama ay ka leexdeen xukunkii ilaahay subxaana wa tacaala iyagoo og oo garanaya xukunkii ilaahay, waxayna u leexdeen qawaaniintan khilaafsan diinta ilaahay subxaana wa tacaala. hadalka wadaadka waxaan u malaynayaa inuu cad yahay. wadaadka hadalkiisa waxa uu ku sheegay riyaad الsaalixiin mujalladka koowaad wadaadku sheegay raxmat ullahi calayhi. waa garan. waalcilmu cinda allah. darsigeennii maanta intaasaan ku ekeynaynaa in sha allah. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.